Somaliland hanolaato Somaliland ha guulaysato runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhalinyarada runtii xafladan inoo soo qaban qaabisay 26 Juun oo runtii ah dhalinyaro yaryar oo aan u malaynayo inay tihiin dhalinyaradii wadankan ku kortay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inay maalmaheennii qaranka inoo qabtaan xaflado oo message-keena ay adduunweynaha gaarsiiyaan Somaliland runtii waa dal marka laga soo bilaabo xilligii xornimada qaatay 66 sanadood markaynu 26 June oo in caawa joogno ka bilowno 66 sanadood haystay xornimadiisa xornimadaas way naga luntay odayaasheenii hore ku eedayn mayno oo waxba ka khaldamay oo Soomaali jacayl iyo waxba hayay laakiin si wanaagsan uma talin xornimadeena inaga luntay waxaynu doonaynay 30 sanadood baynu halgamaynay mar aynu banaanka u baxno soo halganay iyo mar aynu hadii beedankeeda leeyahay dalka gudihiisa ka halgamaynay 60kii bay ahayd markii aynu doonay inaynu xornimadeena dib loo soo noqono nimankii dhalinyarada ahaa ee dhalinyarada maanta inoo qabatay oo kale ahaa saraakiisha ay dooneen inay Somaliland dib u qabsadaan inqilaabkii suurtagali waayay waa ilaahay ma hadii caawa inagoo 66 sanadood ka joogna 35 sanadoodna u halgamaynay inaynu mar labaad ictiraaf helo ictiraafkii aynu haynay ee iska tuurnay inaynu caawa ictiraaf haysano oo aan uga mahadnaqayo runtii madaxweynayaashii Somaliland min Cabdiraxmaan ilaa Cabdiraxmaan Silayo hadii beedankeeda Musabbixi Taahir Riyaale Maxamed Xaaji Ibrahim Cigal nimba meel buu soo gaarsiiyay raggaas oo dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan Ciro waxaan ugu mahadnaqayaa runtii waa madaxweynaha ictiraafka keenay anagoo xusbiyada mucaaradka waanu taageersanahay anagoo ku hadlaya magaca xusbiga kulmiye madaxweynuhu ictiraafka uu keenay waa taageersanahay waxaanu leenahay madaxweyne ictiraafka soo kordhiyo dalalka kale hadhayna waanu kaaga fadhinaa baan leenahay madaxweyne reer Somaliland runtii waa ruux qura waa jir qura waxaan runtii dhalinyarada ku boorinayaa inay sidaa ay u dagaalamayaan Twitter-ka uga dagaalamaan Facebook uga dagaalamaan TikTok-ka uga dagaalamaan qof waliba waa ambassador wadankeena dhalinyarada qurba joogtay ay qaado message-kiisa oo ay caalamka gaarsiiso aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay in caalamku meel walba maanta inaga hadlayo inagoo ah Somaliland marka runtii waxaanu leenahay Somaliland waa loo soo halgamay qolada xamarna waxaanu leenahay ama 26 June inkastoo aan ku faraxsanahay in safaaradii qoladii Nairobi inoo joogtay safaaradeenii Nairobi ay ka soo xidheen qoladii joogtay Kenya qoliyaha xamad joogana waxaan leeyahay durbaan aan meeshiisii lagu tumayn durbaan ma ahay Somaliland baa 26 June iska leh iyaday gaar u tahay kooda luliya idinku leedina tiina dabaaldega hanagula dhuuqina taayada inta markaan ka gudbo waxaan runtii ku soo gabagabaynayaa ku soo ururinayaa hablaha quruxda badan leh saxaafadda iyo dhammaanba akhyaarta ka soo qayb gashay halkan waxaan leeyahay Somaliland guul Somaliland ha isku duubnaato waxaanu rajaynaynaa insha Allah in guulahan aynu imka keenay guulo ka fara badan qaranku gaadho qaranku waa qoriisu dhiib aad iyo aad baan runtii idin salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh